السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حق سيد هالكان إن كلام لاينا وحق سيد حماديد أوفيشيال إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وحرب إن اللي ذا قبان تدير برهالك النقطة برنامج كين امتحانها إلى ما بحي بالبعد قيسك كارهان موضوع وحنكو قد جرني خويضا ما أنت وحن مارتا قادين هدير برهالك النقطة موضوع عوان كيسوية هو يضو ومعلمات هو يكستا ومعلمات ويكستا وحو إلهي مارتاي أود قارا أسيي إنا نقطة معلمة كواد إيقوريغا هداي تاي هذل هداي تاي هبنقن هداي تاي عنس هداي تاي لبس معلمة داس أو أي كوكها بيسو المهدا كسكو أود إلهي سبحانه وتعالى وإنه قلضي قف كستا إنه مارتاي هدو إلهي أو تلقل إنه هدلي كرو هدانا وحاويان المكستا وحاو أفا كبرتا هو يدي cunitaanka iyo cabitaanka waxa barta hooyadii dhar xirashada waxa barta hooyadii saanqaadka iyo talaabada sidii socodka loo bilaabo waxa barta hooyadii tan mar kasta la qosleysa ee ma garanaysaa ay ciyaarsiinaysa ee had iyo jeer maaragtay sidii maskaxiisi u korleed ku howlan waa hooyadii tan dareemaysa kuleel iyo qabow waxa uu baahan yahay waa hooyadii tan dareemaysa inuu xanuunsan yahay iyo inuu caafimaad qabo waa hooyadii tan dareemaysa qandhadiisa inay hay tahay iyo inay meel dhaxa tahay heerkulkiisa mid had iyo jeer mid cabiraysa waa hooyadii hooyo kastaana awooddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala gaar ayuu u siiyey haba sii kala karti badnaadaan oo sii kala dadaal badnaadaan aabbuhu ma awoodo hal saac iyo ka badan haddii uu la joogo ilmihiisa uu ciyaarsiinayo ee uu ku dhex jira cunuga waxyaabaha u baahan yahay iyo waxa uu dareemayo midna ma dareemi kara aabbuhu asagoo aan hadlaynin ayaa waxay kala dareentaa hooyadu oo awood gaar ay u leedahay biyo iyo caana hadba ku u baahan yahay inuu ooman yahay iyo inuu gaajaysan yahay ayay kala fahmaysaa allahu akbar hooyadu waa cajiib qof kastoo waxaan leeyahay hooyadu inay cajiib tahay kaamadaha soonee laakiin waa la kala dareemi ogyahay sidoo kale hooyadu waxay dareemaysaa nasbarkii habeenkii saqda dhexe ayadoo jiifto hurdo leh qarka ku jirto inay marada ka duuftay iyo in maaragtay si xun u jiifo iyo in afka wax qashan ah u galeen ayay dareemaysaa la socotaa hadii jeerna controlkiisa ayay ku howlan tahay laakiin inta aan soo sheegay aabbuhu ma awoodo mana kari karo ma aha aabaha inaan xaqirayo dadaalkiisa iyo waxyaabaha ilmihiisa u tari karo aabba kastoo wanaagsan ama fiican wuxuu ka siliitaa hooyada xun li'anna hooyo wax loo dhigi karaa ama la barbar dhigi karaa ma jiraan way jiraan aabayaal wanaagsan oo ilmahooda jecel oo had iyo jeer la dheela baahidooda inay dareemaan isku daya had iyo jeer maarta ilmahooda ka howlan way jiraan laakiin waxa jirta waxay tahay inuusan marnaba gaari karin hooyada hooyo kasta waxay jeceshahay ilmaheeda markii uu maarta soo hana qaado oo uu socod barto hadal uu barto oo la geynayo dugsiyada sidii malcaamadaha iyo iskuulaadka waxay jeceshahay hooyadu ilmaha inuu ahaado kan ugu labis badan ugu caraf badan ugu edebta wanaagsan ee maaragtay ugu degan oo iskuulka in maaragtay loogu jeclaado ama malcaamada loogu jeclaado ayay hooyadu had iyo jeer ku dadaashaa waayo waxay dareemaysaa inuu yahay askari ay soo dababartay kaasoo dagaal tagayo had iyo jeer waxay ka fikirtaa ilmaheedu markuu dibadda aadayo oo banaanka u baxayo oo malcaamada ama maaragtay uu aadayo meelaha ma garanaysaa iskuulaadka ama sidoo kale meelaha lagu ciyaaro ilmaha ay maartay ku ilmeeyaan sida banoonta meelaha ay ku dheelaan ee garoomaadka hooyadu waxay jeceshahay ilmaheeda meel kasta maartay oo tago inuu ka muuqdo hadaba hooyada noocaas ah waa kuma qofka dareemi karo waxa dareemi kara ilmaha baariga ah iyo ninka habdhaqanka dumarka garanayo ee xaaskiisa ay tahay guriga la joogo hadaba ayadoo sidaas tahay waxa dhacdo rag badan inay maartay hooyada noocaas u dadaalayso oo ilmihiisa ku rafaadayso oo had iyo jeer maaragtay ku howlan ilmihiisa u ahaan lahaa mid ka dhex muuqda bulshada dhexdeeda inay maaragtay ugu sii daraan harjuum dil gacan qaad aflagaado iyo maaragtay farxad la'aan iyo had iyo jeer in maaragtay ay waxaysan u qalmin ay kula dhaqmaan haddaba waxaan leeyahay hooyo kasta ay dadaalka bixinayso qofku waa abaalgudi karaa waa kan ay dhashay ee ku dadaashay labiyo dhidi ku ahaadaba ilmaha ay dhashay hooyadu waa kan kaliya abaalkeeda ma gudi karo balse maaragtay farxad gelin kara ee ay dareemi karto waxa ay ku soo rafaaday waxa ay yihiin waxa kale oo dareemi kara aabaha wanaagsan ee xaaskiisa ay tahay ee ma garanaysaa habdhaqanka dumarka wax badan soo daraaseeyay meelaha uu ka liitana is og meelaha uu ku fiican yahayna is og
iskuna barbar dhigo hadii jeerna ciladu uu leeyahay u sheego ee ku yiraahdo xabiibti ciladaas ayaan leeyahay waa inaad igu dul qaadataa maadaama ilmahayga hooyadood aad tahay anoo isan xumaan iga ahayn waa waxyaabo mararka qaar iga dhaco waxa kale loo baahan yahay wax kasta ee wanaaga uu karo inuu ku garab istaago ku farxad geliyo hadii jeer maartaay qalbigeeda ku sifeeyo waxaan halkaan dardaaran gaaban uga dirayaa hooyo kasta inaad noqoto hooyada aan soo sheegay waxyaabaha ay qabato aan soo xusay ku dadaal ilmahaaga hadii jeer nadaafadooda tarbiyadooda akhlaaqdooda wanaagsan iyo habdhaqanka bulshada ay la ximaanayaan midka reerka aabaha u ah ee ilmahaas aad ku rafaayayso aabahood ah adiguna waxaan ku leeyahay walaalkayow hooyada sidaa u dadaalaysa ee ilmahaaga ku rafaadsan ee hadii jeer ku howlan si magacaaga uu kor u noqdo lianna waxa weeyaan wiilkaaga markuu halkaa marayo la oran maayo waa wiilkii heblo laakiin hadii jeer waxa la leeyahay waa wiilkii hebel hooyada dadaalaysa ee magacaaga kor u qaadayso waxa lagaaga baahan yahay adiguna inaad magaceeda kor u qaadod wanaajiso hadii jeerna aad ku howlanaato inta ayada ay qabanayso in la mid ah ayadan inaad u qabato sidoo kale waxa halkaan fariin ooga dirayaa ilmo kasta la dhalay hooyadii ay ku soo tarbiyeysay wanaagaas iyo sharaftaas aan ka soo hadlay hadii jeerna ay ku howlan tahay dhibaatada fara badan la soo martay adiguna waxa halkaan fariin kaaga dirayaa gabadhi wiil midkaad ahaataba hooyada caynkaas ah inaad hadii jeer qalbigeeda ka ilaaliso waxyaabaha xunxun hooyo ku soo tarbiyeysay diin ku soo bartay akhlaaq wanaagsan ku siisay haddii ka waran la yiraahdo wiilkaagii daraagis buu halkaa la fadhiyay fuxshigaas uu dhex taagnaa waxa weeyaan ma garanaysaa waa laga soo sheegtay gabar muslim oo dhibaatada u geystay iyo wax la caynkaa sidoo kale gabadhaadii halkaasii maraysay dumar noocaasii la socotay asxaab noocaasii yeelatay halkaasii shishad ku dhuuqaysay iyo hotel hebel bay baartis u aaday iyo wax kastoo maaragtaa iyo gabadhaadii baa qaawanay maxaa heblow ku dhacay waxyaabaha noocaas in hooyada ay u tagaana waan kaaga digayaa daawado waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay aadna daawato fadlan subscribe noo saar like share comment wax alaale wixii aan ku khaldanahay halkaan nagula wadaag wixii aan ku saxanahayna nagu dhiirigeli insha Allah si aan u sii badino waan hubaa wax kasto oo bulshada faa'iido u leh ayaa maartay isku hawlnaa sidii aan ku soo bandhigi lahayn ma nihin dad ka hadlo qabyaalada iyo waxyaabaha maartay siyaasadda oo macnaha aan u sameeyay bulshada dhexdeeda laakiin waxaan ku hawlanahay haddii rabbi raali ka noqdona karansiyo wax kasta ee bulshada maartay manfaacad u leh waana haday tahay wax sheeg haday tahay sidoo kale haddii taariikh ay tahay iyo waxyaabaha maartay sooyaalka Soomaalida dhaqankeeda iyo hadii jeer inaan maartay xumaanta iska digna ee wanaaga ay sorno fadlan haddii aad naga daawanayso Facebook kilibka waxaan kugu reebi doonaa halka sare ee title-ku uu ku xusan yahay insha Allah halkaas aad ka tixraaci doontaa hadduu rabbi raali ka noqdo mawduuceena maanta halka ayuu ku egyahay intaan midkaan mid xig ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.